leeyahay qaayo dhismaha qarankana codkaagu ka qayb weeyaan muwaadinkaarkaaguna waa qareenka quwadda ku samayn karaya wuxuu leeyahay qaayo iyo wuxuu leeyahay qaayo dhismaha qarankana codkaagu ka qayb weeyaan muwaadinkaarkaaguna waa qareenka quwadda ku samayn karaya haddaad kaadhka qaadan waydo ogow qofkaad dooranayso kaa diidad qaadacayso labada midna kuma qiraayo waxbana uma qaban karaysid haddaad kaadhka qaadan waydo qaadacayso labada midna kuma qiraayo waxbana uma qaban karaysid diiwaanka qofkii ku yaalo karkaagii lagu qorsheeyey ummatii u aad muwaadinadoo qadanaya markiiba goobtii ad ka qaadanaysay waxaan halkan anuu shacbi weynaha fariin uga degaya caasimadda iyo guud ahaan gobolka maroodijeexba inay si nabadgelyo ah oo degan qof waliba kaadhkiisii u qaato waa arday innocent ah waa xaashacad sidaas oo kale waa xaashacad oo saasoo white paper weeyaan wax ku qoran ma jiraan qalbigooda dadka rabtida maaha oo musuq maasuqiya waxaa ka soo shaqeeyay waa arday yar oo junior golayaal baynu dooranaa haddii deegaan tahay hadday baarlamaan tahay madaxweyneyaalla waynu dooranaa madaxweynuhu ka saameyn badan yahay golayaasha marka waxaan leeyahay bulshada maanta kaarhkaasi muhiimaddaasuu leeyahay ha u qaadanin kaarh siyaasi un loogu codaynayo maaha laakiin waa kaarh aad mustaqbalkaaga kaga tashanayso haddaad kaadhka qaadan waydo ogow qofkaad dooranayso kaa diidad qaadacayso labada midna kuma qiraayo waxbana uma qaban karaysid diiwaanka qofkii ku yaalo karkaagii lagu qorsheeyey ummatii u aad muwaadinadoo qadanaya markiiba goobtii maanta waxa weeyaan kaadh qaadashadii runtii labada gobol ee laga soo hadlay haddii aynu ka hadalno maanta maroodijeex ama caasimadda hargeysa waxa weeyaan waa muraayadii jamhuuriyadda somalilan waa caasimadeenni weeye laba arrimoodba waan codsanayaa tan koowaad in shacab ahaan si nabadgelyo leh oo sharaf leh oo wanaagsan aad u qaadataan kaadhadhka intiinii isdiiwaan gelisay kaarka la qaadanayo sabtiga waa ka uu qofku masiirkiisii ciddii maamulaysay madaxweynaha uu ku dooranayo waa ka uu ku dooranayay baarlamaanka matalaya waa kii uu ku dooranayay golaha deegaanka sidaa la ajligeed qof kastoo Somaliland maanta waxa waajib ku ah inuu kaarka qaato runtii soo jeedinayna in dadweynaha maanta sabti u kareeraya kaar qaadashadii ee gobolka Togdheer
iyo gobolka Buruudjeex ay si hagar la-aan u galaan safafka si nidaamsan oo nabadgelyaana ay kaalintooda u qaataan qofna aanu kaarkiisa lumin. waxaan jecelahay xukuumadda madaxweyne way ku dadaasha hawshan laakiin ma dhammaystiro. waxaa dhiman hawl aada iyo aada u muhiima. hawsha waxaa wada dhaqaale haddii la dhammaystiri waayo hawshan dhammaystirmi mayso. madaxweyne 2 milyan ee hadhay waa hawshii lagu wadi lahaa doorashada lagu geli lahaa. haddii aan hadda gacanta laga saarin commission oo aanay sii qorshaysan oo la yidhaahdo horta diiwaangelintu ha dhammaato, marka diiwaangelintu dhammaato waa mar laga rabo in doorashadii la galo, awoodna loo yeelan maayo, waana lagu feelgaroobayo. waxaan jecelahay arrintaana inaad xoog saarto oo wixii aad ka qaban kartaan ka qabataan. haddaad kaadhka qaadan waydo ogow qofka dooranayso kaa diidad qaadacayso labada midna kuma qiraayo waxbana uma qaban karaysid. diiwaanka qofkii ku yaallo karkaagii lagu qorsheeye ummatii u aad muwaadinadoo qadanaya markiiba goobtii waxaynu halkan u fadhinaa inaan galladda horkii gobolka Maroodijeex iyo gobolka Tagdheer oo mar wada socda haddana ay joognay iyaguna hadlayaan haddii allaba guurooyahay si ay u dhacday saaxil iyo awdal laba la isku raaciyey duruuftaa keenaysa doorasho inay sanka inoo saaran tahay sanka iyo inoo saaran tahay wax dambe la suusugaa ma jiro niyad sami kaliya laaba tartanku waa xalaal yaan laga badbadinin xaqa ha lagu dadaalo. shaqaalaha ka hawlgeliya gobolka Buruudjeex oo keliya maaha Tagdheer Buruudjeex ugu yaraan 1500 ayaa maanta liisgaraysan oo la kala dirayaa maalinta beritaan haddii Ilaahay ka dhigo. 1500 wax sahlan kuma baxayaan waynu garan karnaa. ciidanka booliiska oo keliya oo isugu jira militariga iyo booliiska isugu jira 850 waa inta ugu yar soo qaadanaya ayaa ka qayb gelaya. baabuurta 702 ayaa horta maanta diyaara inta ka qayb gelaysa. waxaan intaa u soo qaadanayaa inaynu aragno culayska ay leedahay inuu qof waliba iska xil saaro oo qof waliba halkiisa mas-uuliyad baa ka saaran. qofka kaarka qaadanaya iyo ka bixinaya iyo kasoo diyaariyintaba maanta xilku waynu wada saaran yihiin. maadaama aynu wada saaran yihiin qof walba waxaynu ka doonaynaa goob kasta oo la dhigay kaarka in la suuro geliyo sida ugu fudud ee loo qaadan karo. Maroodijeex waxay leedahay 342 goobood oo laga qaadan doono kaarka codbixinta. 342 goobood waa la wada dhigayaa kaararka maadaama ay goobuhu badan yihiin waqtiguna uu badan yahay. waxaa laga yaabaa dadka gobol walba marka la geeyo waxay dhahdaan muddada ugu yar muddadu ma yara. waxaas oo dad isdiiwaan geliyey maalin keliya codeeyaan halka waa in laga xisaabtamo maadaama ay maalin keliya codeynayaan muddada imika la siiyey kaar qaadashadu aad bay u badantay. marka dadba waxay ku mashquulaan goobaha caynkana goobaha inta lagu mashquulay ha lagu mashquulo dadka sida loo soo saaray dadku sida u qaadanayaan kaarka waa lagu mashquulo. 342 goobood Hargeysa iyo deegaamadeeda hoos yimaada waa 218 goobood inta laga qaadanayo kaarka. Gabiile waxa weeyaan 370 goobood Salaxle waa 28 Baliguudana waa 27. waxaanu markaa ku boorinaynaa oon leenahay muwaadin kaarkaaga qaado adiga naftaada qaado xaaskaaga u sheeg saaxiibkaa u sheeg ku boori jaarkaaga iyo qof kastood wada shaqaysaan inuu doonto kaarkiisii codbixinta weliba weydii haddaad tahay muwaadin isagu qaatay kaarka saaxiibo qaadatay kaarkii maxaad u qaadan weyday qaado waayo waxaynu haysanaa 7 cisho waa 7 cisho labada magaalo ah iyo miyiga ama meelaha ka baxsan labada magaalo oo 5 cisho ah 14 cisho waa dheeri aan ugu darnay waxa laga yaabaa inaanay dadku in badan qaadan
waxaan ugu talagalnay inay habka noqoto laakiin inta culays ku saaray waa 7 cisho hore marka muwaadiniin inaad qaadataan kaadkiina codbixinta waanu idinku boorinaynaa wuxuu bilaabmi doonaa sabtida oo bisha 8 6 subaxnimo ayuu kaadku inoo bilaabmi doonaa dad hadaad kaadhka qaadan waydo ogo qofka dooranayso kaadiidad qaadacayso labada midna kuma qiraayo waxbana say noogu dhacdo doorasho wan maan wan food doorasho xoro xalaala say noogu dhicleed waxa ku xiran tahay inuu nin walba inaga mid ilaaliyo in kaadhkaasi muwaadinkiina hanu qaato kii qofkii lahaa ma ka dhintay dabadaba ka dambaysay ama ka maqan yahayna gacanta koobishkeena ku haro wala ciidamada nabadgelyo dhammaantood qaybaha kala duwan la shaqeeya koobishku waxay ku amran yihiin in cid kasta oo hawsha istiraahada khalkhal geli inay sharciga horkeenaan inuu mahadnaqo waxaa leeyahay macaaridku maanta waxaa islahaa marmarka qaarkood aad bay noogu mahadnaqayaan islaha sababtoo ah dowladii naga horreeyey 25% baa kaga hagaagi jiray doorashooyinka qarashkooda 25 laga waayi jiray oo la waayay maanta anagoo wixii bixinayna weliba waxba yar dhiman oo intaan hayno saaxiibkay waxaa leeyahay isku galaadiyaan kay labadooda tabriya kaasibeyne welina fariin iyo dhaliil weli sii sheegtoon walaa waxaan islaahay doorashadii kan diyaar u hayna doorashada diyaar doona doorashada xukuumad diyaar bay ku tahay way ka go'an tahay wasiir dib u jiidi karaana ma jiro xildhibaan dib u jiidi karaana ma jiro qaranka madaxweyne ma loo doortay waxaan kuma committee ku nahay in doorashadu 13 November haddii aan la yiraahdo ay sidoo u qabso qarashna dawabal maalinba waxa la hawshan kala baad yaa culeyskeeda og wixii habsaan ka imanaysa og diiwaan gelinta itaalkeena culeyskeena haysteena garowda weeyaan abaar bay nagu dhacday dakhliga dawladda dhimay herjaas bawarka dalka oo dhan dhimay xoolo baa laga joojiyay meel wax ka keenna ma ogidina ama ayaa suufi xajas soo dhabnaa hawshaas in habsaan mar ku wada diiwaan gelintii korba intay doontaa hadii wad qaylayseeno waa si buuxinay tii kale waan qadinay intii baday maanta wax ragaa ka maqano dibada ay ka dooranayaan oo lacag la kiis waa ma jirto inta waxa dhawaayntii shaqadeena iyo gudaha lagu qabay taasina oo loo helayaa waqti oo haysan dad hadaad kaadhka qaadan waydo ogo qofka dooranayso kaadiidad qaadacayso labada midna kuma qiraayo waxbana uma qaban karaysid diiwaanka qofkii ku yaalo karkaagii lagu qorsheeyey ummatii u aad muwaadinado qadanaya